khayraadka dihin ee deegaanku hodanka ku yahay ayaa ah mid aan weli laga faa'iidaysan kaasi oo ka mid yahay kalluunka ku jira webiyada waaweyn ee deegaanka Soomaalida mara. Haddaba iyadoo laga duulayo baahida loo qabo ka faa'iidaysiga khayraadkani ayaa xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guraaga ee dawladda deegaanka Soomaalida uu bilaabay sidii bulshada looga faa'iideyn lahaa habka casriga ah ee kalluumaysiga, isagoo xafiisku gaadhsiiyey iskaashatooyinka ku hawlan kalluumaysiga oo ka mid yahay dooyaha iyo gaadiid u sahlaya suuqgeynta wax soo saarka kalluunkani. wasiirka xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Tayyib Axmed Nuur ayaa sheegay in xafiisku mudnaan gaar siiyey sidii loo horumarin lahaa habka casriga ee kalluumaysiga. xoolaha aan leenahay ama khayraadka xoolaha dhulkeena ku jira ma aha oo kaliya xoolaha nool inagu aan dhaqano ee gool loo iyo ariga. waxaa jira khayraad kale oo iyaga laftoodu hanti ah oo nool isla markaana faa'iidooyin badan inoo leh haddii aan siday tahay uga faa'iideysano kuwaas oo weli ka faa'iideysigooda aysan bulshadeenu aad ugu baraarugsanayn. waxaa ka mid ah khayraadka kalluunka ka mid ah sida loo ogyahay deegaankeena waxaa mara webiyaal afar ah. webiyadaas waxaa ku nool khayraadka kalluunka oo ku jira oo yacni ay hoy u tahay biyo ay hoy yihiin kalluunka. marka kalluunka saba yaraatay deegaanka bulshadeena kama aysan faa'iideysanin iyadoo la og yahay kalluunku in uu leeyahay faa'iidooyin badan oo aysan lahayn xoolaha. marka sidaa darteed xafiiskan horumarinta khayraadka xoolaha waxa uu baryahan dambe ku talagalay in ka faa'iideysiga dhanka kalluunka ee bulshadeena kor loo qaado, wacyiga ay bulshadu ka qabto in hilibka kalluunka la isticmaalo kor loo qaado. waxaa la asaasay iskaashatooyinkaas oo ka howlgala webiyadeena deegaanka ku yaal. haddii mid kamid aan soo qaado waxaa kamid ah iskaashatada horumarinta kalluunka ee Shabeelle. Xasan Suufi agaasinka waaxda horumarinta xoolaha ayaa tilmaamay in xafiisku uu wada qorshe lagu horumarinayo habka casriga kalluumaysiga isaga oo laga hirgeliyay nidaamkani 5 gobol oo deegaanka ah. xafiisku wuxuu culays ka saaray sidoo ku duulay qorshihiisa miisaaniyada 2010-2011 wuxuu target ka dhiganaa culays inaan dadka fahansiino barnaamijka wax soo saarka casriga ee kalluumaysiga. waxaan target saaray 5 gobol oo qaadnay model at least inaan bal fahansiino oo ka jabino fikradan dadku ay aaminsan kalluunka inuu aan hilib salcun karin ama kalluunka inuu at least wax saar u lahayn. 5 gobol baan ka fulnay mashruucan ay ka mid yihiin gobolka Shabeelle, gobolka Liibaan, gobolka Erar, gobolka Nagab, gobolka Afdheer. 5 gobol baan ka fulnay. 5 gobol waxaan target ka dan sii saaray degmooyinka webiyada ka maraan. natiijooyinka hordhac ah ee laga helayo habkan casriga ee kalluumaysiga ayaa waxaa ka mid ah dalada ay ku bohoobeen iskaashatooyinka kalluumaysiga ee gobolka Shabeelle ayaa dhawaan waxay magaalada Goday ka fureen hotel loogu talagalay in lagu iibiyo wax soo saarka kalluunka, waxaana xadhigka jarka hotelkani ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo xubno ka socday xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha ee dawladda deegaanka Soomaalida. sida ay tilmaamayso daraasaad laga diyaariyay noocyada kalluunka ee ku jira webiyada iyo harooyinka dalka ayaa sheegaysa in 273 nooc oo kalluun ah ay ka jiraan dalkani Itoobiya. haddaba deegaanka Soomaalida ayaa markii u horeysay daraasaad noocan ah lagu sameeyay noocyada kalluunka ee ku jira webiyada deegaanka mara, iyadoo oona daraasaadana iska kaashanayaan xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guraaga dawladda deegaanka Soomaalida iyo jaamacadda Haramaya.